caawa meeshaan wixii laga dhihi lahaa waa laga yiri haddii ay tahay abwaaniintii dhallinyarada ahaa fikirkiinna iyo fasaaxadiinnaba allaha siyaadiyaan leenahay sida ay u cabbireen nimankaa khawaarijta ah ee dagaalka ummadda Soomaaliyeed jiritaankeeda lidiga ku ahaya sida ay u cabbireen dhaqankooda sida uu xun yahay iyo sida uu u dhib badan yahay sida uu qalloocan yahay aad iyo aad ayaa waxay u ahaydeen runtii casharro waaweyn oo la barto waa ku mahadsan yihiin dhammaantood intaasoo kale madaxweynayaashii mas-uuliyiinta halkan hortay ka hadashay ayaa iyagana dagaalka iyo wuxuu nagu mudan yahay yaa sheegay waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan u sheego shabaab waxaa la dhihi jiray xaaqinka iyo dhulka xaaqinkaa dhammaado dhulkuna waa soo haraa shabaab waa xaaqinkaasi shacabkuna waa dhulkii shacabkaana soo harayo waanay muuqataa inuu soo haray oo maanta alxamdulillaah dhul aanan muxuu ahay 15 sano 16 sano la soo dhaafay aan la marin oo aan nabad lagu marin oo laga leexan jiray oo saacado badan iyo maalmo badan bariyo dhan oo maxaa badan loo soco jiray yaa hadda isbedelay markaan sii soconana ilaahay idinkiisa waa isii bedeli doonaa dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan qof shabaab lagu fiirsanaayo oo looga haraayo oo raalli laga yahay inuu shabaab cawo ku sii hoydo dhulkooda ma jirto waa lagu soo socdaa waana laga saarayaa dalka haddii alla yidhaah nimankaasi dalka iyo dadka iyo diinta miday u tureen oo ay wax u reebeen ay wax u dhaqaaleen midna ma jirto mid ay ka xishoodeenna ma jirto mid ay u naxariisteenna ma jirto marka waxa aanay lahayn ayagu annagaa iska leh diinta annagaa leh dalka annagaa leh dadku waa dadkanagi annagaa leh marka muxuu ahay waa ka ceshanaynaa waxa aan leenahay iyaguna waxa ay leeyihiin maba laha ee meesha ay aadayaan ayagaa garanay waxaa soo haray dalka Soomaaliya oo dhan dalka Soomaaliya dal aad iyo aad u ballaaran waay oo dawlado waaweyn oo caalamka maanta ka jiro ayuu 2 jibaar ama 3 jibaar ka badan yahay 4 jibaar qaarkood dalkaasi marka maalin iyo bil iyo 2 iyo sanad iyo si sahlan uma dhamaan karo laakiin si waqtiga safarka ah ee halganka ah ee aan shabaab ku soo gaabinayno waxay ku xiran tahay hadba inta tabarteena ah waan gelino haddii aan tabarteeno dhan oo midaysan oo dhinac u jeedo oo qalbi iyo qowlba ka midaysan aan u jeesano waqtigiisu aad iyo aad ayuu u soo koobnayaa sida madaxda iga horeysay ay sheegtay laakiin xoogaa haddii aan kala daadaadano oo qaarkeen ay dhegta intay telefoon usoo diraan u sheegaan waryaa waa soo noqonaynaa iska jira oo qaarkood ay yidhaahdaan wallaahi nimankii waa noo jeedaan oo qaarkood ay yidhaahdaan war hee dhahaya nimankan waa soo sheegnay keliba meelay kugu dhaafayaan meelay kugu dhowrayaan midna ma jirto sooma noqonayaan dadka Soomaaliyeed waxaan rabnaa ha ogaadeeno sooma noqonayaan shabaab dagaalaan kula jirnaa goob dagaal ka dhacay si bay u ooli kartaa dhib ma laha laakiin dagaalka aan kula jirno ee guud mid hakanayo ama laga noqonayo ama maxaan ku yiraahdaa dib loo dhiganayo midna ma ahan dawladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waa muujiyeen arrintaas inay dhab ka tahay oo waddadaasi ay haynayaan sanad ayaa haatan la gaaray intii dagaalkan uu socday waxaa la joogaa waqtigii abaalmarinta oo dadka qaarkiis la abaalmari lahaa oo si maxaan ku yiraahdaa jamaaci ah oo wadajir ah loo abaalmari lahay oo qof loo abaalmari lahay ilaa iyo hadda inta la soo maray way joogtaa dadka qaarkiis ee dadka Soomaaliyeed ku qaldamay ama cabsi shabaab ha qalado ama mangaabnaan kale ha u qaldamo ama urakac ha u qaldamee ayadana waqtiga inta la isla xisaabtamo lagu eeday lahay ama lagu ciqaabi lahay ama lagu ceebay lahayna waa la joogaa ayadana waxaan ilaahay ka rajaynayaa dadka intiisa badan inay noqdaan kuwa la abaal marinayo la amaanayo haddii aan la yidhaah ilaahay hadda anu hadda ma garanayo cid la ceebeeyo ama la cadaabo ama la muxuu wax looga dheelo ma garanaye laakiin dad badan
ayaa ii muuqdo xusuustayda ku soo noqnoqonaya oo mudan in la abaal mariyo laakiin fursad loo waayey fursadaheedii qaarna hadda ay joogaan qaarna ay soo socdaan kuwa nool iyo kuwa dhintay intaba haddii la yidhaah kuwii dhintayna ilaahayay muxuu ahay agtiisa khayr iyo wanaag u jiraa kuwa noolna sidoo kale ajirkaas iyo xasanaadkaa ilaah agtiisa waa u jiraa laakiin waa magacooda ayaan annaguna sheegi doonaayo si ummadda iyo kuwa naga dambeeya iyo kuwa dhalan doona ay ayaguna ugu daysadaan ooy dadkaa wanaagsan ee waxa wanaagsan sameeyey ay u daba kacaan oo ugu daysadaan ayaan magacyadooda iyo u sheegaynaa oo aan ugu soo celcelinaynaa waqtigeediina waa la joogaa dadka Soomaaliyeed inta ay soo arkeen kalsooni gelin waa ugu filantaan u malaynayaa iyo shabaab inaan laga noqonayn iyo shabaab inaan dib loo waxaynayn iyo shabaab inaanu ku soo noqonayn meeshuu ka tagay kuma soo noqonayo ha soo dhuumaalaysto ha soo dhuukaalaysto meesha wadada bambaha geliyo maxaan ku yiraahdaa jaqda hawdka inta galo ciidamada wadada maray iyo dadka wadada maray ha ka soo xabadeeyo laakiin waa intee waa siciid intacaanihiisi ninkii isku halaynayo waa ninka shabaab isku sii halaynayo maanta waa tageen dadka Soomaaliyeed meel kasoo joogaan gaar ahaan dhalinyaradu doorkoodii way qaadatay culimada doorkoodii ilaa xaddi waa qaateen abwaaniinta oo rag iyo dumar bala doorkoodii way qaateen siyaasiyiintu waa u taagan yihiin wayna wadaan welina way sii socotaa doorkoodii uu sii muuqdaa wayna qaateen waxaan leeyahay dadka inta wax alla u dhiibay ee waxhaysata ee ganacsatada ah ee hantiilayaasha ah doorkiinni weli waa dhiman yahay dadkiinnu dhibaatada ay qabaan maydaan soo arag weli deegaanada 15 sano 16 sano khawaarijtu ay ka talinaysay baahida ka jirta iyo duruufaha ka jiraahi dadka ay maanta sugayaan waa dadka inta alla wax u dhiibo wax haysto waaye allana waa kula xisaabtamaya waxaas ay haystaan meeshaas meel ka fiican oo ku bixileed lama jirto reer hebel iyo reer hebelaa isdirirayaba beesaad ku bixidaaye reer hebelkaad dadka soo dila beesada ku sii jirtay qaaraanka ku dhiibi jirtay guubaabada ku bixi jirtay maanta ku bixi inay biyo nadiif cabbaan in ilmuhu iskoor u helaan in ilmuhu dugsi qur'aan u helaan in gabdhaha meelay ku umulaan ay helaan in carruurta yaryaroo dhalata meel lagu tallaalo ay helaan intaa ku bixi maanta barnaamijka xasilinta dadka Soomaaliyeed oo dhan uu u yaalaa xasilinta iyo adeega dadku ay u baahan yihiin hadba intii la karaa la bixinaa waxaan la karin la bixin maayo iskuul sar ah oo dabaqyaa ma dhisayno mid cariisha ma dhisi karnaa geed hoostiis ma waabi karnaa ilmaha wax loogu dhigo bata lagu baro ama dugsi quraanka lagu baro oo cadceedana ka ilaaliya xafarka iyo dabeeshana ka ilaaliya maanta meesha ay taagan tahay waa meeshaas dadka Soomaaliyeed dalka iyo dibadda meel kastoo ay joogaan sidaas aan leenahay haddaan u soo noqono waxaan rabaa mar kale inaan ammaano u duceyno bogaadino geesiyaasha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed haddii ay yihiin ciidamada qaranka iyo haddii ay yihiin dadweynaha difaacayaasha bulshada macawisleyda odayaasha akhyaarta ee gartay ee dhalinyaradii ayagoo waayeela inta maxaan ku raadin qorgooda deegta saartay raacay culimada daba kacday ee wacdiga iyo waanada ku hayso wiilasha qoryaha sita dhalinyaro intay geed ka booday tala ka boodaha la yiri inay dadkooda badbaadiyaan inay sharaftooda ilaaliyaan inaanay dhicin inaanay waxad dadka mar kale waxaan rabaa inaan ku soo gunaado ugu celiyo garanwaaga ha la iska ilaaliyo haddii shalay beledka magaalada garanwaaga iska ilaali oo guriga ha ka ijaaranin oo gaariga ha ka ijaaranin oo maxaan ku yiraahdaa yeeli lahaay maanta dadka Soomaaliyeed ee miyiga ku noolaan leenahay iyo deegaanada bannaanka ah ku nool
garawaaga iska ilaaliya garawaaga adigu wuxuu kugu soo gelayaa qaraabaysuu kugu soo gelayaa qabiiluu kugu soo gelayaa qabiilka kii shalay markii dadka la dhibayey lagula dhibayey ee dhibbanaayaa kugu qabiilaya kii wax dhibayey kugu qabiil ma aha kii shalay ku dhibayey xoolaha kaa gurayey gabdhaha kaa boobayey adiga iyo maxaan ku rahaa dadnimadaada bahdilayey kaasi kugu qabiil maaha maanta hadda waa dullinimo meeshii ugu dambaysay inaad halkaas qabiilnimo intaad ka jirisa aad tiraad waa wiilkeennii waa garanaynaa waa naqaanaa maya kan muxuu ahay waa ka yimide kama imaanina waa lagu soo diray markii ay carareen kuwii madaxda u ahay adigaa lagu soo diray waa lagu soo celiyey adou kaa shaqaynayaa ciidamada qaranka ka shaqaynayaa kuwa walaalihiisa istaagay inay xumaanta dadka ka bixiyaan rabay macbuusleeda ayuu ka shaqaynayaa aakhirkana intuu bamba idinku tuuro idin qarxiyo cararayaa kuwii ka galbaday ka daba galbaday ka daba tegaya ha walaashanin hadday dhab ka tahay oo soo noqday oo yimiday dowladda u dhiib waa dhowr marna waa dhawaana ku celcelinaynaa war wiilashu waa wiilasheennii waa nalaga xaday hadday noo soo noqdaan waa wiilasheennii firnacayb uma qabno isirnacayb uma qabno ilaahayaa dadku hadday dembi galaan ay gacmaha kor u taagaan oo ay baryaan ilaahaa cafiyey annaga maxaaman inaan cafino maxay culays u tahay waa la cafinayaa laakiin hadde waa inaan hallay cafiyo waa inuu yidhaah oo qaladkii uu dhaco uu ka qoomameeyaa oo maxaanku yidhahdaaye meeshii uu ku galay uu ka tagaa oo meel kaloo wanaagsan tagaa oo maxaanku yidhahdaaye uu isbeddel muuqdo waa inuu ka yimaadaa waa la cafinayaa waa wiilasheenna waxbaan baraynaa xirfadaan baraynaa aalaadka ama tuuriska yacni nolosha ayaan rabnaa inaan gacmaha u gelino oo u noolaado asoo karaamo leh oo waxa uu shaqaystay cunaya oo ku noolaanayo ayaan rabnaa inuu noolaado waalidka iyo walaalka wiilka la xajeclaysanayo maalintaasoo wax kuu taraya dowladdu dili mayso bahdili mayso dullay mayso nolol qurxoon inuu ku noolaado aayihiisa intaa u hartay cimrigiisa ayaan rabnaa intaasaan kala shaqaynaynaa ha qarinin ha la dhuumanin wiilku waa sidaas waa wiilkeennii meel nagama tago waxaan leeyahay wiilasha jira shabaab xaggiisa horena waana ka hadli doonaa marar badan oo soo socda laakiin waxaan leeyahay gabolku yaanu idinkugu dhicin meesha hadduu idinkugu dhacayna waagu yaanu idinkugu baryin ka soo noqda cadowga u soo noqda guryihiinnii u soo noqda dadkiinnii u soo noqda dowladdiinnii meel kuma harin shabaab odayaasha meel kuma harin agtooda odayaasheenna laftooda waxaan leenahay wiilashay dhallinyarada maahane warda aad tihiin khaatumaad joogtiin markaan ka bacdi caafimaad darraa qaarkiin qabaan waxaa u baahan tihiin inaad nasataan waxaa u baahan tihiin inaad maxaanku idhahdaay fursadda cimrigiinna inta idinkaga hartay inaad cibaadaysataan inaad ilaahay u towbo keentaan inaad dadkiinna cafis weydiisataan yaad mudan tihiin duurka ha ku rafaadina oo ha ku dhimanina adoo sii cararayo sii ordayoon ordi karina maalin walba yaan muxuu ahaaye wiilal badani waxay u la'anayaan oday waayeelahoon ordi karin oo meesha inuu ka cararo aanan karin oo wiilasha meesha ku haayo wiilasha waxaan leeyahay xiska ha idiin soo noqda odayadana waxaan leenahay adeerayaalo inta idiin dhiman nolol fiican oo suuban iyo cibaadada alle iyo alla kacabsiga iyo karaamada iyo ciziga bini aadamku uu leeyahay ilaahay uu siiyey adikoo ilaalinayo noloshiinna inta dhiman cibaadadaas ku dhammaysta iyo deganaanshiyo carar iyo duur ha ku dhammaysanina dalka soomaaliya guud ahaan xaaladdiisu aaday u wanaagsan tahay cadowgaa waa ka baxayaa dowladdii way dhismaysaa xukunkii waa sii degaandegayaa dowlad goboleeduu jooga waa ka dega degmooyinkuu tegayaa tuulooyinkuu tegayaa haddii alla yidhaahdo
arrintii xasilinta waa socotaa dadka meel kastoo joogaan dadka Soomaalida inta dawladdu karto in la gaarsiiyo waxbarasho caafimaad biyo maxaan ku raadaa adeegyada kale amniga leh garsoorka leh maxaan ku raaddaa in ay dawladdu heerarka kala guduunadu ay iskaashanay in dadka Soomaaliyeed loo geeyo talada loo dhaweeyo dadka Soomaaliyeed oo meesha ay joogaan ay ku taliyaan hore aan u ballan qaadnay waa naga dhab dadka Soomaaliyeed qof aanay ayagu dooran oo tala u dhiiban loogu dhiibi maayo lagu jajuubi maayo loo soo diri maayo kay ayagu talada han loogu dhiibaan la ay yiraahdaan yaa talada loogu dhiibaya oo u haynayo bas dulqaadkeeda ha yeeshaan fursadeedana ha bixiyaan meeshii wiilkooda fiican iyo gabadhooda fiican ay talada ugu dhiiban lahaayeen goobtaas sidii loo tagi lahay goobtaas maxaa naga xigo shabaabaa naga xigon dalka ka saaro shabaabaa naga xigo tuulada qurac dheere iyo garasweyne iyo maxaan ku raaddaa banaankii maxaa heblow in sanduuq inta la dhigo qof walba codkiisa ku rito yiraahdo aniga cali aan rabaa aniga caashaan rabaa oo ka yiraahdo yaan soo socoto aan dheereenon hiigsanayna haddii la yiraahdo waxaan leeyahay aan u gacmo banaysanno in aan shabaab meel iska saarno abwaankii heestii ahayday maalmihii wacnaa way soo socdaan aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan rabaa mar kale inaan u mahad celiyo madaxweynaha iyo dowladda galmudug martigelintii soo dhoweyntii heegankii ballaarnaay oo ay ku jireen iyo taakuladii gabdhaha reer galmudug weliba taakuladii ay ka daba geeyeen muxuu ahay wiilasha ciidanka ah ee frontiga jiro aad iyo aad ayaan waana uga mahad celinaya waana ku ammaanaya waa ku bogaadinaya sida gabdhaha kale ee Soomaaliyeed haddaatay madaxweyne Axmed ka hadlay gabdhaha Soomaaliyeed maanta cidda la hubo oo la arkay oo muuqata inay dagaalku u taagan tahay qaybaha bulshada marka la fiiriyo waa iyaga kuwa xamar joogahayna 24 saac waa ka soo daba dhiibayaan muxuu ahay raashinkaas qalalan oo ciidanku intay socdaan oo aan dab shidan karin ay ku sii noolaadaan ay ku isticmaalaan aad iyo aad ayay maxaan ku raaddaa ugu amaanan yihiin waana ku ammaanaynaa meel kastoo ay joogaan gabdhaha Soomaaliyeed kartidooda iyo kaalinta iyo dareenka mana aha wax maanta ay bilaabeen taariikhiyan ay sida soo ahayeen gabdhaheen gobsana hablaha iyagu waay aad iyo aad u mahadsantihiin ballanteenu waa goobaha dagaalka waa wiilasha dagaalka jiroon u tagno meesha ay joogaan ugu tagno maxaan ku raaddaa bacaadka la soo seexanno waxa ay cunayaan aan la soo cunno oo aan halkaa ugu tagno waayo waana u sii soconnaa waa u tegaynaa haddii alla yidhaah aad iyo aad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu